Erik ten Hag oo shaaciyay 3 arrimood oo ku doortay Casemiro, Anthony Martinez iyo Eriksen. Tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa shaaciyay astaamihii uu ku soo xishay saxiixyadii uu sameeyay ee xagaagana kadib markii 4 guulood oo xiriir ay ka soo hooyeen Premier League isla markaana ay Old Trafford ku garaaceen kooxda hogaaminaysa Premier League ee Arsenal. Manchester United ayaa kulankaasi ku soo bilowday 3 ka mid ah saxiixyadii cusba waxaana ka mid ah Lisandro Martinez, Anthony iyo Christian Eriksen, halka kubadda burburyaha reer Brazil ee Casemiro uu ahaa bedel gadaal laga soo geliyay ciyaarta. waxaana uu tababaraha uu sheegay in ilaa haatan Casemiro aan la qabsan shaxdiisa ee falsafada kooxda Manchester United. xidigaha Manchester United ay ku soo kordhisay safkeeda ayaa noqday kuwa dib u soo celiyay ciyaartii lagu yaqaanay Devils iyo hamigii taageerayaasha ee ahaa in ay koobab ku guuleysan karaan kadib markii 5 sanadood kooxda ay faramarneyd. labada ciyaartooy ee sida gaarka isku muujiyay kulamadii kooxda ay ciyaartay ee boosaskooda joogtada helay ayaa kala Lisandro Martinez oo booskiisa daafac dhexe kala baxay Harry Maguire iyo Christian Eriksen oo ahaa xidigii kulankii Arsenal, halka Anthony ciyaartiisii koowaad uu furtay xisaabtiisa goolasha ee Premier League. Casemiro ayaa isna bedel ku yimid 2 ciyaarood waxaana uu kooxda ku soo kordhiyay xasilooni iyo deganaan ciyaareeda, balse sida uu ku dooday Erik ten Hag waa inuu weli uu saldhigtaa uuna la qabsadaa kooxda Manchester United. Erik ten Hag oo la weydiiyay waxa uu ku doortay ee uu ku saleeyay xulashadiisa ciyaartooyda uu soo iibsaday xagaagan ayaa yiri marka hore ciyaartooyda aan la soo saxiday waa ciyaartooy u ciyaara xulalkooda oo heer caalami ah. marka labaad waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican tartanka Champions League. marka saddexaad waxay leeyihiin xirfadda shakhsiyadda waxayna awood u leeyihiin in ay ciyaaraan kubad xamaasadooda sareysa. sidaasi ayaan ku doortay in aan soo iibsado xidigahani. tababaraha Manchester United Erik ten Hag ayaa amaanay ciyaartooydiisa kulankii xalay ay la ciyaareen kooxda Arsenal, waxaana uu si gaar ah u amaanay ciyaartooyda uu dhawaan la soo wareegay ee kala ah Lisandro Martinez iyo xidiga dhawaan uu la soo wareegay ee Anthony.